way kala qaybsantaa laba qayb dhanka galbeed oo ka dhacay dhibka mar walba waxay Jabuutiyaan u sheegaan in ay joogaan nabadiid ma ahan dadka meeshaas jooga dad nabadiid waa dad samadoon waa dadkii ku soo dhaweeyay Jabuuti waa dadkii shalay u sacbatumay ee dhulkooda ku soo dhaweeyay maanta in ay ku tikrifashaan oo dib dawladda dhexdeeda ka dhacay loo dhibaateeyay dad dhalinyaro oo beeralay ay yaqaanaan wali markuu cusub yahay waxa la dhigi karaa magaalada ku cusub yahay dadka kale ma yaqaan muddo degan dadku way kala barteen maamooyinka meheradaha ku lahay oo dhahay wiilashan maadan aqoonin beer waraabay ka imaadeen shidaal ay wataan maxaa inay dadkii maamulkiina xiraan iyo dhalinyaradii magaalada ay ku guraan xabsiyada ay ku guraan oo gudoomiye ku xigeenka degmada Jalalaqsi asagoo oo matalay waliba gudoomiyaha xukunkiisa gudoomiyaha maadaama uu xanuunsanay la soo waday in lagu xadgudbo oo la xiro ciidankiisana ku dhigis lagu sameeyo dhalinyaradii magaaladana la xiro dawladda federaalka dawladda Hirshabeelle inta maamul ay qusayso in anaga beesha baadcad hadaan maalin walba lagu tigir farsha mana nihin nabadiid anaga hadii ay Jabuuti arintan ka jawaabi weyso ay xaq dadka ay baabi'isana ay mees asaar weyso waxa noqon doona rag iyo dumar beesha baadcad inaan hub qaado doono lana dagaalan doono nabadana ka hor imaan doono